weliga iska ilaali inaad qof si xad dhaafa ama zaa'ida aad u nacdo ama u dhibsato berri jeclaan doontide ma ogide. Sheekadan Hindiya ayay ka dhacday, gabadha qisadan ay ku dhacday ayaana social media keentay. Maalmaha dhan zaa'id ayaa loo hadlahay, okay? Waxay dhahday waqtigii iskuulka aan dhiganayay waxaan ahaa gabar afgaaban, dadka aanan badi la hadlin, qoyar socoda in yar oo ay isfahmaan ma ahani. Maalin waxaa jirtay dhahday ardadeena kamid ah oo markaas oo wiilaa uu igu casuumay khado, kadibna lunch boxkiisii ani ka jibiyay dhahday waxaan diiday inaan dib ugu iibiyo. wiilkaas maalintaas wixii ka dambeeyay oo inacay oo idibsaday dhahday yani ardayda oo ugu neceb yahay iskuulka ayaa ku jiray dhahday way soo gaaba qof kasta oo ii sheegi jiray zaa'id oo necbaay dhahday sidaas ay u ahayd dhahday iskuulkii waa dhameynay waa la kala tagay nin walba dantiisa ayuu raacday muddo 15 sano ee ka soo wareegatay dhahday waqtigii waxbarashada ayaa waxa dhacday tiri ab oo dadka iska bartaan oo raba inay isla sheekaystaan ayaa waxay u soo aaday dhahday isla wiilkii marka aniga ma ogiye dhahday laakiin isaga marka isbaranayba horay ayuu iga gartay dhadina aniga ahay wuxuuna isoo dhahay ma laga yaabo inaad lunch boxkeygii dib igu iibiso kadibna maskaxdeeda inta qaadi iskuulkii geystay oo aan ogaaday inuu yahay ninkii adduunka ii necba marka iskuulka dhiganeynay wuxuuba ii sheegay dhahday inuu aad ii jecel yahay uu iraadinayay uu irabo oo yani qoftu jaceylkiisa muddo qalbiga uga jirta ahay dhahday aad ii jecel yahay waayaabay dhahday waa isbaranay xaaladaha isweydiinay muddo kooban ka bacdigeena waa isku qanacnay dhahday ana ninka shilaan aqaan uu ahaa ani ma nacbeen isaga kaliya ay nacbaa waxaan ogaaday inuu gadaal aad iiga jeclaaday kadibna waa isguursano oo maanta waxaan nahay dhahday dad reer samaystay soo sheekada waxay ku tusinaysaa iska ilaali qof inaad si xad dhaaf u dhibsato bari ma ogid in qofkaasi aad noqon doonto qof ka daba ordo tan kalena badan ayadana waxa la sheegaa ma fiicno inaad qof si xad dhaaf u jeclaato aad ka badbadiso بريتول موجودين نعيدون تدقف كاس يعني وحول بوحي كوفي عيهن دحدحات كاس صباحا أي سلام عليكم